In ka badan 2 bilood ayuu xidhan yahay saxafi Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo xukuumadda Soomaaliland ka soo xidhay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Cabdimaalik ayaa lagu soo eedeeyay warar been abuur ah oo uu ka baahiyay iskuulka Abaarso iyo jaamacadda lagu magacaabo Barwaaqo. walow markii dambe ay soo bixeen dhaliilahaasi. Cabdimaalik ayaa 2 bilood ee uu ku jiro xabsiga wax xukun uu ku dhicin iyadoo aan la ogeyn ilaa hadda xaalka uu ku sugan yahay iyo inta uu ku sii jiri doono xabsigaasi. Eedeymaha kale loo haysto Coldoon waxaa ka mid ah in uu jawaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi khudbadu ka jeediyay jaamacadda Barwaaqo oo uu kaga soo falceliyay hadaladii madaxweynuhu halkaasi ka yidhi. Madaxweynaha Soomaaliland oo muddo-xileedkiisa ka hadhsan tahay sanad ayaa noqonaya madaxweynihii ugu xadhiga badnaa intii uu xilka hayay, iyadoo dadka la xidhan ay u badan yihiin siyaasiyiin, aqoon-yahan, dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.